ilaalinayaan dadka dalka iyo diinta islaamka. muddaxileedka madaxweyne xasan sheekh waxaa ka dhiman 463 maalmood. haddaba Soomaaliya maxay ka dhaxli doontaa madaxweynahan? xiisado siyaasadeed oo adag iyo khilaafyo gacan ka hadal sababay oo muddo soo jiitamayay kadib saamilay siyaasadeed oo duruufo kala duwan wajahaya ayaa xasan sheekh maxamuud ka caawiyay inuu noqdo madaxweynaha Soomaaliya bishii May sanadkii 2022. ujeedku wuxuu ahaa inuu ka shaqeeyo isku haynta dalka, ilaalinta shuruucda waddanka, dhismaha ciidanka qaranka, xoreynta dalka, isku soo dhaweynta siyaasiyiinta siyaasadda ku kala irdhoobay iyo inuu noqdo hogaamiye dalka u shaqeeya aan ka shaqaysan. balse 32 bilood kadib dalku shalay siduu ahaa maanta ayuu dhan kasta ka liitaa. dagaalkii shabaab oo aan hor u sheegnay qorshe la'aan iyo aragti la'aan in lagu galay qabaa'il dib loo geystay oo ka kacdoomina lagula daartay halka uu maanta tahay ku soo dhammaado hubkii iyo rasaastii dawladda ay arrinkaa ay ku taageertina maanta beelihii iyaga isu haystaan. madaxweyne shalay waxaa lagugu wareejiyey ciidan taya ahaan, tira ahaan iyo qalab ahaanba dhisan. hase yeeshee ku dhowaad 3 sano kadib khubarada ciidanku waxay warinayaan inaysan jirin hal guuto oo maanta dagaal geli karta. burburka gaaray geesiyaasha qaranka waxaa ugu wacan hoggaan xumo, dayacaad, dhiirgelin la'aan, garaamkoodii oo la musuqay iyo dallacsiinta timaadda oo lagu saleeyo qabyaalad iyo takoor. waxaa la laayay saraakiishii ugu muhiimsanaa iyo ciidankii ugu badnaa. taasi waxay sababtay in halyeeyadii u taagnaa ciribtirka argagixisada ay u qaybsamaan wadayaal mootobajaaj iyo tahriibayaal xadka ka tallaaba. waxaa luntay ammaanadii ay shacabka Soomaaliyeed ku qabeen dawladnimada. sababtuna waa boobka iyo xatooyada uu ku fogan yahay madaxweynuhu. intii uu xafiiska joogay waxaa cagta la mariyay hantidii ummadda. waxaa la xalaalaystay dhaca xoolaha dadweynaha. boobka, bililiqada iyo barakicinta masaakiinta ayaana noqday ajendaha koowaad, labaad iyo saddexaad ee madaxweyne xasan. madaxweyne sida muuqata waxaad ka tanaasushay haybaddii qarannimo. waxaad qaadatay dharbaaxo quureed. waxaadna fagaarayaasha caalamka ku muujisay inaadan lahayn qabkii Soomaalinimo iyo kartidii hogaamineed ee loo baahnaa. madaxweyne haddii aadan haynin dastuur la isla ogol yahay, siyaasad xasilan, Soomaali is ogol, shacab dawladnimada aaminsan, ciidan qaran, xoolihii ummadda ee lagu dhiibay iyo saamilay siyaasadeed oo heshiis kula ah, maxaa laga dhaxlay?